qaar ka mid ah odayaasha iyo waxgaradka ka soo jeeda gobolada Gedo iyo waqooyiga Galgaduud ee ku sugan magaalada Columbus Ohio ee dalka Mareykanka ayaa markii ugu horeysay qabtay kulan looga hadlayo xalweelida khilaaf ka taagan cidda mudan qabashada xilka ugaasnimada kadib markii uu geeriyooday Allaha u naxariistay ugaas Cumar ugaas Xirsi oo ugaas ahaa in ka badan 50 sano. dadkii ka hadlay kulankan waxa ay diiradda saarayeen sida laga maarmaan ay u tahay in la xaqiijiyo in aan la isku dhaxyaacin siyaasadda iyo dhaqanka isla markaana dib loo eego qaabka soo jireenka ee lagu dooran jiray ugaaska waa ka nabadoon Xaydar Cali Cumar oo kamid ah nabadoonadii ka hadlay kulankani waa sharci waa dhaqan waa xeer hadii la waayo waxa la hagaajinaya waxaan talinayaa talabku jeedaya qariibkiis in la leeyahay ma kaliya soo tirada warugaaska nimba dhaxla nimba ka dhaxay nina ka wiil badna nina waxa iskale ninka abi ka dhigay ugaaska nabadoon Maxamuud Barre Warsame Fanax ayaa kamid ahaa nabadoonadii ka hadlay kulankan gaday ka hadleen jubada hoose ka hadleen Galgaduud bay ka hadleen nagaylana waa ka hadleen waxay sheegeen dad diaspora isku sheegay oo siyaasiyiin ah in ay soo farageliyeen waxa iyagu ayna ogeyn ay ku dhawaaqeen oo saxaafadda ay ka sheegeen magacayga waxa la yiraahdaa Mahad Aadan Ismaaciil waxaana ka hadlayaa arintan ugaasnimada waxa la yiraahdaa waa dhaxaltooyo ninba uga dambeeya sida dhaqanka sidaas weey haddii la yiraahdo nin ugaas ahaan jiray oo dhinto oo caruurtiisa ay ilma yihiin oo kii kala qabsado sidii ay iga soo gudubtay weey waxa qaato ninka markaas nool caruurtiisa ayaa qaato dhaqanka horta ugaasnimadu kaas weeye tan labaad waxa weeye xagga dawladdu waa marjac markii dadka shicibku isqabto oo wax iska sheego ayada ayaa loo noqdaa maslax bay ku kala saartaa waxay ku kala saartaa u yeeris iyo wada hadal iyo nabadgelyo kama shaqaysa dhibaato iyo xumaan magacaygu waa Xaashi Cali Mare kelmadda ugu horeysa waxa weeye shirkan waxa loo qabtay ugaaskii dhintay ugaas Cumar ugaas Xirsi ugaas Maxamed booskiisii oo la rabo in la buuxiyo wiilkiisii loo magacaabay qolooyin kalena ay mid kale ka dabageeyeen arrintaasuna aanay ahayn arrin dhaqanka iyo soo jireenka ah waafaqsan ayna ahayn ummadda dhexdeedana ay qaaqul iyo dib waxaan ahayn ayna ku soo kordhinay in laga joojiyo arrinta la joojiyo waa qodobka koowaad oo shirkan loo qabtay way qodobka labaad wuxuu yahay ugaasku ma aha wax lagu murmo ma aha siyaasad ma aha wax la doorto wax santuuq loo dhigo ma waa dhaqan way qofka dhinta wiilkiisa iska haduusan gablan ahayn Xasan Cumar madaxa jaaliyada Columbus jecel dhaqanku waa saldhigga waxay la mid tahay geedku markuu baxo geedku waa joogaa xididadu mar walba waa joogaan marna wuu qalalaa marna caleen baa ka soo baxda waxa weeyaan dhaqanku waa salka waa geedka in dhaqankaa la xagsado oo la ilaaliyo haddaynu maanta fiirino meel walba oo Soomaaliya 20 sano si dagaalka ku jirnay dawladda aynaan lahayn waxaan ku badbaadnay waxay ahayd oday wanaagsan oo talinaya dhaqan talinaya dadka oo dhageysanaya nabadoon Cabdi Daahir Xaashi Doore ayaa tilmaamaya doorka qurba joogta ay ku leeyihiin arrimaha noocan oo kala dadka dibadaha jooga dhaqanka ma dhisan wadanka gudihiisa mana dumin karaan waxay leeyihiin ayagu dadka gudaha wixii ay dhistaan ama ay sameeyaan inay ama taageeraan ama isaga aamusan Nuur Faarax Dhere ugaashkana waxa la yiri ninba islaantiisi oo uur leh oo dhinac jiifta kanaaca waxay ka fooshalka wuxuu damcay la yiri inuu kanaacada gacan ku dhufan karaa waa ka cayrin karay joog baangad inta soo qaatay وعاوز برضك كده كل فتاة كان عادي نوابل أنت نوابل وقاس نمني عسوا الله أدو ساكا هالكاس مرسينا يريكو بكرة لي عندنا ما نبغى دقصنا Universal TV Columbus Ohio